يقانين dadka xigta kolka muqdisho loogu tago waa la yaqaanin laakiin ma garanayaan politika adduunku sida uu socdo iyo xagga uu socdo ma garanayaan waxa weeyaan in oroma ahaata ummadda Soomaaliyeed way ku taqaan anu Soomaali ma cadu baan la anigu Soomaali waa walaalahay ninkan aad u jeedaan ee oromka ah waxa uu la yaaban yahay kharajaadka aan innaba caadiga ahayn ee ku baxaya Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo dhinaca kale xabad u kala saaraya qabiilada Soomaaliyeed iyada oo taasi ay ka makhraati kacayso qabiil kasta waxa uu ku fiican yahay iyo waliba shucuubta kale ama dalalka kale waxa ay naga aaminsan yihiin aynu daawano nin Oromo ah oo ka yaabiyay ummadda Soomaaliyeed ka bacdi markii uu kala saaray qabiilada Soomaaliyeed una si cad u sheegay kooda dawlad raba iyo kooda u bartay dhac iyo qalalaasyo iyo in fowdo lagu jiro si kale aan raali ku ahay ninkani waxa uu tusaale u yahay dadka ajnabiga ah waxa ay naga aaminsan yihiin waxayaan hadda idinku daalin bal aynu daawano ninkan oo ah nin Oroma af Soomaaligana si fiican u yaqaana oo si fiican u kala saaraya qabaa'ilada Soomaaliyeed iyo waliba isaga oo si gaar ah uga sheekeynaya safarkii Xasan Sheekh Maxamuud oo uu isagu laftarkiisu aamin leeyahay madaxweyne kharajaad intaas ah galaya oo shucuubtoodu ay u dhimanayaan gaajo iyo waliba abaar aynu daawano fiidiyoga marka hore wadadka xagashada meesha la fadhiya balukaadi wanigi farmaajo ee iska hagaajiya adduunkan iska hagaajiya meel iska dhigay Afrika oo dhan meel iska dhigay ee cid ku soo hagaagta la waayay bal aqliga eega inuu aqliga eega baashal Soomaalida qabiil ba ka dhaadhacsan yani isaga oo Oroma ayuu waxa uu sheegayaa Soomaalidu in ay yihiin dad uu qabiil ka dhaadhacsan yahay يعني كي أرم كأها أيا إنجا نلت تلينيا أو صوماليا إسقى أو نجوانيا إن أنو قبيلك يو قبيلة دب إسكدينه هل كاس أيه مرسا ومد صوماليا عين كسرنا فرمادو ما حكون عليه قبيل وبتكون عليه بولتك نفهم أيوها عيد كاستا فراك قاد حتى مريكن بفراك قادوا يلا وربرك هيرجوك صورته وحبنا قلنا ياي انت فاتح لكن يجوك سدو هالكا فدي يقول كينيا كان منين دارودا كان منين مريحانا كان منين مجرتنا كان منين دير يرحوينا كان منين هوية ماي وانين أورما وانين حقيقة فهنسن سياسة الصومالية وهذا لفتر كذا أمة الصوماليات أي للسعودان ماشي أي وحمريان يولي سيدا أي إسكوب الشيء سياسة الصومالية يدعو لغا عبسي قابوه إن دالكينا ونقضوه ميل لغو هردمو وإنغو أينو نقضنو عوسكي مروديالنا أي إسكو قردتيحيان بل أينو كسو عنو هذا الكنيكن أو ميسامن oo ka hadlaya xaqiiqda dhabta ah fatxadii maana dhamaysan halka fadhigu Ethiopia wuxuu yiri maaragtay muttafaqun calayna waa heshiinay halka iska fadhiya cid taabsanaysa farmaajo intuu meesha joogay cid hadal qaadaysa Soomaaliya ma la waay misla ma la waay balkadiyo neen intuu orday ilaa ma baash tagsiga u noqoto diyaaradan meena batrool cunun balkadiyo batrool ma cunto waxa uu leeyahay diyaaradii baa xitaa taxi u noqotay diyaaraddu meena batrool cunum waa runtii yani lama arag yani waxaan laba bilood gaarayn madaxweyne ka soo jeeda dalalka adduunka ugu faqrisan oo kharajaad aan innaba caadi ahayn ku bixinaya in uu u duulo xitaa dalalkaasi haddii inaga faa'iido ay noogu jir lahayd waxba baahan lahayd laakiin iyagu ay dano gaar leeyihiin sida qaalka sida webiga Niil iyo waxyaabo fara badan oo aadidku laftirkiinu goobjoog u ahaydeen xaqiiqatan iska daa ummadda Soomaaliyeed dadkii kale ee wadamada kale ka soo jeeday ayaa la yaaban habaarka iyo waliba dhibaatada ku habsatay ummadda Soomaaliyeed bal aynu ku socono fiidiyoga ilaa $2,000 baa lagu shubaa taangiga diyaarada maaragtay taangiga gaaska $2,000 baa lagu shubay ma awkaadi lacagtan inta leeg halkay ka burqanaysa ma ceel wuxuu sameeyay hawiye leeyahay oo dollarku ku jiro miyuu jira maceel hawiye leeyahay dollarku waa xaqiiqatu waa run yani iska daa wadamada qaniga ah ayuuna madaxweynahoodu intaas
waqtigaas yar oo kooban ayuuna intaasoo wadan booqan karin waa waxaan maskaxdaba geli karayn in faqri meel ah madaxweyne maamulaya uu u duulo wadamo qaniya isaga oo ay dantooda iyagu ka fisheen yani ninkan waxa uu ka hadlayaa waa wax ay ahayd ummadda Soomaaliyeed inay ka hadlaan xaqiiqatan bal aynu ku socono leeyahay baa muqdisho jiro oo batrool oo maaragtay super baal ka bixiya diyaaradaha Soomaalida qabiil baa ka dhaadhacsan Soomaalida don't care about in dawladda dhiso in dawladda dunto they don't care about iyaga qabiil baa ka dhaadhacsan iyagu waxay fardigu waa qabiil Soomaali iyo muslimnimada kee horeeya hada tiraadid Soomaalinimada horeeyay ku oranay qabiilnimada ama qabiilka iyo muslimnimada kee horeeya qabiilka kaga horeeya ha qabiil bay ka dambeeyaan iyagu bal farmaajo oo maaragtay dhulka oo dhan iska rusheeyay oo maaragtay dhulka oo dhan iska hagaajiyay oo maaragtay cid dhaqaalaada la waayay shimbir ku soo dhaqaalo Soomaaliya la waayay ciidan dhisay kala nooc dhisay oo maaragtay wadankii dajiyay mushaarku ciidanku ay maaragtay si direct u qaataan iyo ku kaceen anu waxaan ku korab hawiye politic ma garanay markii farmaajo la haystay baan anu sala war hawiye politic ma garanaysaan xaqiiqatan maadaama uu ninkaasi sidaas ummadda Soomaaliyeed u kala garanayo uu u og yahay kooda raba in ay dawlad yeeshaan iyo waliba kan kale oo fawdada iyo dhaca iyo qalalaasaha ku soo jiray kuna sii jiraya maxaad u malanaysaa dadkii kale ee Soomaalida ahayd maxaad u malanaysaa xitaa kuwii kale ee ajaanibta ahayd caalamku maanta waxa ay si fiican u kala yaqaanaan ummadda Soomaaliyeed oo waliba ay kala og yihiin qabaa'ilada Soomaaliyeed nin walbana waxa uu guudo iyo waxa uu galo iyo waliba waxa uu aaminsan yahayba sida ninkan oo kale korka ayay ka xifdsan yihiin xaqiiqatan hadalka ninkan dad fara badan ayaa saashan doona laakiin ma ahan hadalka ninkani mid isaga ku kooban ee ajaanibta faraha badan ee dalkeena Soomaaliya raba in ay burburiyaan ayaa wax ay kala yaqaanin aqoon buuxdana u leeyihiin qabaa'iladeena meesha aynu kala degno iyo waliba ninka fawdada badan oo ay iyaga laftirkoodu laaluush soo siiyaan si dalka uu u burburiyo amaba uu burbur ugu horseedo tani waxa la oran karaa waa tan xaqiiqda ah ee ajaanibtu ay og yihiin oo waliba ay ka soo galaan dalka Soomaaliya si ay u fushadaan awaamirtooda iyaga oo burburinaya dad fara badan oo mooryaan ahna lacag ku siinaya xaqiiqatan ninkan hore looma aqoon oramka ah laakiin dad fara badani waxba ay u haysteen Soomaali ilaa ay ummad si fiican u yaqaana ay si toos ah u soo waceen bal aynu ku soconno hadalka ninkan oo aad ba moodoba hadal xaqiiqatan aad iyo aad u qoto dheer la haystay baan anu sala war hawiye politic ma garanaysaan war adeer iska daaya ninka farmaajo meesha iska jooga daarood ahaan baad u irinaysaan daaroodkiisana iska aade waxbuu inii hagaajiye iska dhaafa yalla hawiye xaq